dhammaan inta saxaafadda halka joogta iyo inta kala socota meediyaha meelaha fogfog ka daawanaysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan saaka idinku yeernay xisbi ahaan inaanu caddayno mowqifka iyaga ku wajahan arrimihii doorashooyinka iyo heshiiskii laga gaadhay maalintii u dambeysay ee madaxtooyada ay ku saxeexeen saddexda xisbi qaran ee madaxweynuhu hormuudka ka ahaa oo ay shalayto waxa weeye ku soo diristay in si sahlan oo aan sharci ahayn oo aan hab raaca iyo nidaamka sharci waafaqsanayn la yiraahdo qof baa isu hortaagay oo inaan loo yaraba isu hortaagay la yiraahdo ayaan doonaynaa inaanu ka hadallo mowqifka iyaga horena waxa uu sheegay Cabdulqaadir waxaanu si faahfaahsan uga warramay arrinta noocaas ugu horeyn waxa aad wax loogu qoslaa oo la yaab leh heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen aan qaranka cid u maqnayn ee beesha caalamkuna inugu helisay marxaatiga ka ahayd in kala shaqaysay in la yiraahdo inan ba loo yaraba diidayo yiri waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaas oo dhan waxa isku raacday waa sharci darro oo waxa loola yaabo oo lagu qoslo wuxuu oran karaa ma diidayno wuxuu oran karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa loo yarahaan ama sharci yaqaanaan qofka sharci yaqaankii aragtidiisa sharci buu sheegi karaa laakiin heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo goluhuna ama diida ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama uu diido waxa kaliya oo wax ka bedeli karayo diidi karayay heshiiska ama burin karayay ama laali karayay diidmada goluhu diido xisbiyada mucaaradka aanu ka mid ka nahay way ugu tala galeen haduu goluhu diido qodob ka midana weeyii haduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo haduu ogolaadana in saga laga dhigo marka waxa muuqata xukuumadii kulmiye ee madaxweynaheedii saxay iyo xisbigeedii oo the speakerku uu ahaa goobjoog inay si indhala'aana heshiiskii u buriyeen maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aan sidiisii u raacin annaguna mowqifka wadani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaas nama qabto waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaas uma xidhnin waxa saan ogolahay haddii miiska wada hadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yiraahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale ay bari ka tahay annagu waxaanu tuunsanayna iyagu dabada ka riixayaan hadday se bari ka noqdaan oo yiraahdaan waanu idin kala niyad baanu waanu niyadsanayn heshiiskii la sii wado annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxada ummadda ka gacan taaganmay laakiin si mowqifka iyagu waa kaan soo sheegay maxaan uga tagnaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qadan iska dhaadhiciyaan shalayba waxaan arkay rag leh waxay in hadii la diiday hadii la yeelo warcida laga hadlayay hadii la diiday hadii la yeelo golahay ahayd inan maaha inan intuu isa soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciya mashruuc sharci baa la markuu stage ka marayo inan ma diidi karo talu ka dhiiban kara inan ma diidi karo mana dadafin karo mana laali karo sharci yaqaani waxaanu inan kula taliyaa gudoomiyaha haduu sharciga kala taliyo isagu go'aan wax ku diiday wax ku yaala ma laha marka waxaan arkay rag qaarkii oo dhigaya goliyada haduu diiday waa in todobadii laga dhigaa todoba hadii laga dhigo way sahlanaan lahayd hadii goluhu diido annaga marka ku khasbanay inaan heshiiska raacno laakiin saadeer golihii lama horgeyn waxa iga muuqata wadaada bere murmayo markaas waxa sharci baa lagu murmo kadib wadaadadu isku qabta sharcigo mid baa wuxuu yiri war salliga nabiga diidanta hadda salliga bal isku hayo wuxuu isla soo taago salliga nabiga diidanta
adeer heshiiskii wuu buray oo heshiiskii waa la laalay baan leeyahay adiga buriyay waxay ka dhigantay saliga nabiga diidanta heshiiskii adiga buriyay ee bareer haddaad burisay oo ka baxday oo kula madmadoobaday waliba waxaan cadaynayaa golaha kulmiye inuu majority leeyahay oo dariiqii u furhay ugu sahlanaa ee anagu aanu bareernay ee dad badan dhala yaabanay lahayn maxaad u geyseen ee u aqbasheen oo ahaa in heshiiska loo codeeyo codka weyn naga cod badnaayna kulmiye golaha aqlabiyad buu ku haystay goli aqlabiyada ku haysteen intay ka baydhaan in xildhibaanadii u codeeyaan in dariiq qardajeexa waan sharciga meel la kaga ool inuu kulmiye u bareera waa ayaan dar waxaan leenahay waa kulmiye dawladnimada aamin waa sharciga aamin war golayaasha codkooda aamin war madaxweynahaaga saxiixiisa aamin qodobada heshiiska ayaa na siinaya inaanu ka baxno hadii ay buriyaan aanu cadaynayna inay buriyeen waxay ahayd oo heshiiska ku qoraa in awalan ba laga wada shaqeeyo oo saddexda xisbi ay ka wada shaqeeyaan 15 xubnood guddiga anu kamid ahaa ayaa loo qoondeeyay oo lagu heshiiyay inay ka shaqeeyaan kulmiye kama soo xaadirin baarlamaankana noogu iman fadhi kaliya noogu iman laakiin u cid waan wada fadhinay ilaa iyo shalayto ilaa iyo maalintii waan wada fadhin ka wada shaqeynay waxaanu agta ku baadi doonaa kulmiye inaanu niraahno war kaale nagala shaqeeya anagoo ka eegayna niyad samida iyo danta guud iyo maslaxada ummadda gudoomiyaha ugu tagay madaxweyne ku-xigeenka gurigiisa oo weydiiyay wali waan sugeynaa wali noo iman shalay un bay lagu warhelay inaan baa yiri waxba kama jiraan wixii intaas ku heshiis waxa iyaduna tusinaysa inay heshiiska gacan bidixayeen oo kulmiye ka baxay qodob kamid ah tilmaamayay in si siman ay u saxeexaan xildhibaanada saddexda daraf ucud xubin bay ku lahayd markaana waa la isku ogaa xubinteediina meel fog bay uga yeedheeno qayb ka u saxeexa kulmiye laba nin oo iskood noogu yimid madax banaan mooyaane kulmiye madaxdiisina nooma iman xildhibaanna abaabulona uu noo keenay uu hebel bay la saxeexayana oo ay hadeen 7 xubnood ugu yaraan noo keenaan koob toban buu ku ansaxay laakiin waxa la isku ogaa lagu heshiiyay in ka badan ugu yaraan koob toban bay inay 7 xubnood 6 xubnood labada xubnood iskood noogu yimid mooyaane waanu ku amaanayna runtii inay danta qaranka xeeriyeen iyadoo xisbigii ay xildhibaanadoodii nagu yiraahdeen marka nula hadalay xisbigiina ma amrin bay nagu yiraahdeen marka waxaanu leenahay qodobkaasuna heshiisku kamid ah iyaga jabiyay ka saddexaad wuxuu ahaa markay heshiiska la geeyo haddana in laga wada shaqeeyo meel marinta heshiiska ee ama xildhibaanadu ku diidayaan ama ku yeelayaan taasuna ma dhicin marka waxaanu leenahay maadaama aanay yani ka shaqaynin oo nagala shaqaynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiye fulinin maadaama aanay raacin procedure-kii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen arinta tan dhacdayo de iyadoo aanu golihii diidin golihina aanu waqtigiisii gaadhin goluhu hadduu fasax sharciya galo mushkilad maaha golaa waqtigiisii gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay inuu 23 bisha fasaxu ku geeyahay fasax la soo qadimay aan waqtigiisii ahayn ayaa gudoomiyuhu u galiyay xisbiga u galiyay fasax galiyay golihii marka de taasuna waxa muuqataa inay qayb ka ahaayeen inay heshiiska waxa weeyaan ka baxaan oo buriyaan hadii ay ka baxeen oo buriyaan ana ka baxna waxaanu leenahay waar doorashadii hadaa diyaar u tihiin nin kale wadani doorasho dooni maayo ilaa maalintii waxaanu la taagnay doorashaanu doonaynaa miiskaanu u taaganahay waxaanu leenahay wuxuu ka dhigay ninka uu la saliga nabiga diidanta waraadeer ma diidanini doorashada ma diidana wadaniye miiska kaalaya hadana doorashada diidanayn maxaad golaha majority uga tahay uga baqaysaa u yiman weydi uga codayn weydi uga ololeyn weydi uga shaqayn weydi marka waxaan ku soo ururinaya wadana mowqifkiisu ka aan idin sheegay weeye waxa uu kala shaqaynaya cid walba oo wada in dariiqii doorashada qodaxda laga xaado oo la diyaariyo wuxuu kala shaqaynaya wadani diyaar buu yahay kala shaqaynaya
doorasho minidkii la qabtaa daqiiqadii la qabtaba hadii la baraa la qabanaya doorasho diyaar u yahay laakiinse deewaaniga soo sheegay heshiiskii ahayd caqabadii hor taagnaa arrimihii laga wada hadlayay waxa diiday kulmiya diiday markii horena qardajeexiisi bay mareen iyadoo sahlanayd dacwadii wadani soo gudbiyay ee 7 xubnood ee komishinka ay kaga ku eedeeyeen iyadoo ku filayd in guddi loo saaro oo maalinta labaadba gudoomiye markuu guddiga magacaabo maalinta labaadba guddiga oran kari lahayd garbeelayna ma gar ma laha wadanina hadii la gar uma laha wadada iska mari laha ayaa maalinta horena waxa la maray dariiq aan sax ahayn oo ahaa waanu abaal marinayna adeer maxaad abaal marinaysa waxa xakiinka inoo dhaxeeyay maxaa tuunka ugu abuuraysa tuunka ninka xakiinka waa la eedayn karaa oo cid way tuumi kartaa adigu maxaad maraga ugu furaysaa tuunka maalintii horena dariiqa waqtiga dheer qaatay iyaga sabab u ahaa oo laga yaabo inay bari ahaayeen komishinkii laga yaabo hadii waxba ku cadaan waayaan waxa wadani ku khasbayna leeyahay waa bari hadii waxba ku cadaan waayaan guddi dhexe ay tiraahdo waa bari marka iyagiina baraadoodii iyo waxa weeye inaanay dhibaato geysan iyaga madmadow galiyay waqtiga dheer way lumiyeen maantana iyadoo dariiqii sahlana ka yahay ayay qardajeex amareen waxa leeyahay kurmiyo qardajeex ka soo noqo wadada amaatantii waxay saasha qodada dadka Facebook Soomaaliga ka soo dhaweeyay inta koor qorno hogaamiye xildhibaanada diidana mooshinka ka dareeray waxay isugu jiraan xisbiyada labada xisbiyood oo ku tukaway ee kulmiye iyo wadani mooshinka xildhibaanada saxay iyaguna waxay isugu jiraan xisbiga talada ay kulmiye xisbiga wadani waxa leedahay arintaas ma jirto horta awlan ma jirto xisbiga wadani xildhibaanaha oo ka dareeray ma jirto oo marka taan ku saxay ma jirtay xildhibaano labada daraf oo tabanayay maalintii hore ka hadlay oo darafyada tabanayay iyagu marka tay tabanayeen waxay ahayd arinta saami qaybsiguna ma ahayn arimo xisbigu ka wada hadlayeen miiska madaxweynaha taala marka ma ahayn mawduuc laga hadlayay mawduucan laga hadlayay 9 xubnood laga dhigo 7 laga dhigo saami qaybsiga shaqo kuma laha hadii 7 laga dhigana saami qaybsigii wax ku kordhin mayso waxna ka dhiman mayso hadii 9 laga dhigana waxna ku kordhin waxna ka dhiman mayso soo laakiin xisbigu wadani ku jirin kuwaas darafyada labada daraf of course qaar ba ku jira laakiin kamay dareerin xisbiyada mawduucaas ka dareeray heshiiska kamay dareerin mooshinka bay la diyaariyeen xisbiga kulmiye xildhibaanadu deesoonigi sheegayba waxa xildhibaanadu ma diyaariyeen mooshinka waxa diyaarinayay diyaarintii hore saddexda xisbaa soo diyaarinayay madaxweynaha laba gudoomiye saxay saxiixista nagala qayb qaadan lahaayeen maya laba xubnood baan uga yimid waxa jirta maalintii loo gudbiyay shirkudoonka mooshinka wadawgeedana waxa ka daranay xildhibaano xildhibaanaha hadlay oo xisbiga wadani ka tirsan waxay sheegeen in dareerista xildhibaanadaas ay ka dambayso xukuumaddu miyaad la qabtaan aragtidaas aragtiyaas sida waa tuhuma badan lagu bineeyaa in badan oo kamid ah de tuhumkaas uu iska jira laakiinsi cadayn de imka inay iyagu soo direen oo aanka yiraahdeen de ma oranayo magaca Cabdiraxmaan dad ku soo hadlay hogaamiye hawsha shalay go'aan ka dhacday sharciga gobolka hadlay waxa sheegay ku tuursantii xukuumadda ka dambayso gobolka dowladda leeyahay wali ma cadda waxa sheegay waxa tilmaantay tuurnu tahay xukuumadda ka dambayso ma tuhuma cadda ma sheegay qodobay buriyeen tuursanay ma tiray inay xukuumadda ka dambayso maya عدام قضبة يبريان باشا هالشيء كبروني يوم حكمي قضبة هاي تاس. مرجع ديكون ولا حسبي كل يوم محمود سكار. حكينا الشيء كبحنا. بس كله الشيء كي هرتايه كبحنا بريان بقى. أولاً إني واحد بريان قضب كيها إني نجلاش شقيان عشان يتبون جودي الله صعب وصدق حسبيهم من شنا ما يكسو حاضرين. قضب كاسوي بريان استدي قضبه كمدها. كل بعض نوحها إني هالشيء كلفتي سدالة صحيحان وحلبانا ده يلا صحيحان. لبي يلا بعتك صحيحي. laba xubnood bay ku leeyeen kulmiye oo iskood noogu yimi waan xisbigii xubnihiisa iyo madaxdiisa noo keeni ama nagala hadal nuguna yiri walba si madax banaan baan ku marka oo de waa kii sheek kamid shalay reeti hadlayay dadafeynayay ana la booqif ka dadafeynayay oo kulmiye ah marka yaani ma aha anagu inaanu ka baxnay inaga kulmiye saaray kulmiye hortiye buriyay anaanu ka baxnay buriyadii hadii ucid wada shaqeynaysa intii aad mooshinka ka gudbinay maxaa imika xisbiga oo inta soo dhaaway shaqada isku ogtay shalay mowqifkooda way sheegeen waqti saxaafada ku qorano iyaguna waa nagala mid inay aad kulmiye oo hayaan in kulmiye buriye heshiiski oo nagala mid